dalka Japan. Japan af Japanese waa Nihon ama Nippon. Magaceeda oo dhammaystiran waa Nippon Koke ama Nihon Koke. Waa waddan jasiirado ka samaysan oo ku yaala badweynta Pacific ee qaaradda Aasiya. Waddanka Japan wuxuu daris leeyahay badda Japan, Shiinaha, Koonfur Kuuriya, Waqooyiga Kuuriya iyo Ruushka. Tirakoobkii laga qaaday Japan 1920kii waxay ahayd 56 milyan oo qof. Sanadku markuu ahaa 2011kii waxaa deganaa 127,960,000 oo qof. Japan waxay ka kooban tahay 6,852 jasiirado. Afarta ugu waaweyn oo boqolkiiba 70 daboola dhulka Japan waa Honshu, Hokkaido, Kyushu iyo Shikoku. Japaaniisku waxay iskugu wacaan Nihon, luqadooduna waxay dhahaan Nihonge. Magaca Nippon macnaheedu waa Japan, laakiin waxay u adeegsadaan lacagaha, bashqadaha iyo ciyaaraha caalamka iyo wixii la mid ah. Rikoodhkii ugu horreeyay ee magaca Nihon wuxuu ka muuqdaa taariikhda Shiinaha ee hanaanka Tang, Book of Old Tang. Dhammaadkii qarnigii 7aad wafdi ka yimid Japan ayaa codsaday in Nihon loo isticmaalo magaca dalkooda. Magacaani waxaa laga yaabaa inuu asal ahaan ka soo jeedo warqad loo diray 607 waxaana la diiwaan geliyay. Taariikhda rasmiga ah ee Sudiste Prince Shuteko Regent of Japan ayaa u diray ergeyga Shiinaha warqadaas uguna yeeray boqortooyada dhulka ee qorraxdu ka kacdo. Asxaabay waa mahadsantihiin 100% waqtiga aad ku bixiseen muuqaalkan daawadashadiisa. sidoo kale asxaabay waxaan idinka codsanayaa haddaad ka cusub tahay channelkan fadlan subscribe. sidoo kale muuqaalkan haddaad ka heshay fadlan like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.